waa masantahay kulmiyada radio maanta saaki dhacdada igu dhacday waa dhacdo aan filaynin inay igu dhacayso ama aaba weligay aan isdahay nolosha way ugu dhacayso saaki gurigeyga ka baxay sida caadada ahayd shaqo ayaan u socday dhanka shaqadaan aadayay kadib daljirka darsoon ayaa waxay igu qabsadeen askar askartii waxay yiraahdeen shareer ay xirnaa in shareerka iska fur inta shareerkii waan iska furay dadkan waxay yiraahdeen soo deg waa garta sidii aan ku soo degay markaan soo degay wuxuu yiri waa laga shakiyay intii istaagay hay meeshii istaagay taliyihiisu wacday askarigii isoo dejiyay marka wuxuu yiri taliye waxaan haynaa nin in shareer iyo soo xirtay iyo xijaab waa garta marka taliyihii wuxuu ku yiri waa fiicantiin waa inaad markaasi aad soo saartaan waa garta bajaaj iyo askari kusoo dabadara hay sidii uu sameeyay askarigii wuxuu raaciyay askari iyo wuxuu raaciyay bajaaj kale uu saaray kiyaasa nabad laga dejiyay waa garta kadib saldhiga noo kaxeeyay saldhiga aan hay saldhigii oo akhbaarteedii ayaan oo isugayaan ayaan bajaajti ka degnay marka waxay la hadlay taliyihii saldhiga Bondere waa garta dan saldhiga Bondere wuxuu yiri magaca assalaamu alaykum magaca markaas waxaan ku yiri alaykum salaam faa'iida leedahay waa garta marka wuxuu yiri waa diaspora nin ah oo diyaarsan waa garta wuxuu igu wareejiyay gabar oo markaas meesha taagneed oo laakiin aan dhigi karin uniform ee wadatay oo lagu garanayo oo booliisnimada hay marka gabadhii igu wareejiyay wuxuu yiri soo baar waa garta gabadhii way ka xeesay gudaha saldhiga galnay qol oo waxa la geliyay oo 5 qof dumar kale ay jifeen waa garta marka shaqada ay ka baxeen hay soo marka gabadhii ka xeesay gabadhii lagu daba daray oo baaritaanka lagu daray gabadhii waxay tiri qolka ka baxad qofkana la baaraa waa garta marka dadka sida la dhahayo qolka ku jira waa dad xiran maahay waa kuwa meesha jiif waa kuwa meesha oo shaqo ka baxay oo jiifanay shaqadii ka baxay oo jiifay ahayn waa garta gabdhii waxay yiraahdeen ma baxeeno qofkan inta ku bar lagu akbar waa garta dadana gabadhii waxay tiri darka dhig waxaan darka dhigi maayo darka ma aha wax sharci ah in darka qofka bini'aadanka si dhigtid laakiin waxa xaq u leedahay in ay baartid ibar waa garta hada wax iga fahmi waysa taliyihii soo diray ku celi waa garta akhbaarta gabadhii marka timaheegii ay tataabatay iyo kulli jirkeygii waxay tiri atmaa marka timaha leedahay batumada dheer leedahay marka gabadha soo bood waxay tiri hadda ka hor in la qabtay wuxuu lahaa timo waa garta marka gabdhihii ayaa aflag oo meesha jiifeen oo la kiciyay ayaa aflagaada igu bilaabeen mid waxay tiri habsan oo waxay tababar ay soo qaadatay qofkan qof diyaarsan waa diyaarsan tahay waxay tiri ninka ilaana u marsanbo hay so marka waxaan ku yiri waa hadlana intaas gabadhay baarayso gabadhii waxaan ku yiri gabadhana xaq iga leh inay baarto intii kale ina aamustina leedina dhahay waxa iga garanaysaan aflagaadadana way xun tahay aflagaadadana iska dhaaftana fiican hay markaas ninka uu inda adag yahay gabadhii marka waa qalqashay ibaaraysay oo go'aan degdeg way gaaraysa waa garta gabadhii way ugu mashquushay marka taliyihii wuxuu yiri gabadha waqti marka ay qaadatay wuxuu yiri maxaa natiijo haysa banaanku ka soo hadlaya marka qolka ku jirna anaga gabadhii waxay tiri taliye wali wax la jitila ma hay waraysi ay ugu dhaqaaqday marka waxaan ku yiraahday waraysi xaq ma lihid taliyaha igu celi oo biiga leeyay hadi baaritaana lagu soo diray waa garta taliyihii igu soo wareejisay taliyihii marka wuxuu inta ka shaqeysaa maxaa qabataa dan marka waxa uu sheegay in xuquuqda aadanaha uu shaqeeyo oo goobta ka shaqeeyna waa uu sheegay markaas wuxuu yiri waxa u baahanhay nin ama gabar wax kula shaqeeyo inaan noo keento si ay u cadeeyaan waxa tahay waa garta anagoo saas ku murmeeno ayaa waxa soo galay oday oo boolis ah oo markaas aan meesha taagnayn oo markaas soo galay aniga iyo taliyaha doodeen markaas uu fiiriyay wuxuu yiri wargabadhan wax lagu qaldami karo ma aha ma loo gafay 100% nin aka waa ku qaldanteena taliyihii wuxuu yiri odayga booliska wuxuu ku yiri adima hadda ka mas'uula hadii wax ay ka yimaadaan waa garta markaas wuxuu yiri waaba loo jeedaa waa cadahay oo odayga yiri markaas wuxuu yiri fasaxa tahay hadii lagu baahdan marka waxa iga warantaa gabdhihii ku baaray siba gabadhii ku baaraysay
aad u ogolaato jirkaaga inay baarto way soo saari weysa inaad dumar tahay iyo inaad rag tahay waa gabdhihii qalqal geliyeen ayadu way fahamsan tahay laakiin gabdhihii ayaa waxyaabo kale ku soo qofkan waa sanadii tababarsan tahay aflagaadadii waxay go'aan ku qaadan weysa degdega gabadhii laakiin waad u ogolaato Soomaa jirkaaga inay baarto waa u ogolaaday inay taawato meel kasta ay rabto ay taawato oo ogolaaday xilligaas laakiin markaa way garan weysa may way garatay markii dambe way garatay taliyaan wax waa ka arki waayay tiri waxa iga warantaa bajaajta lagugu qaaday ma mid ciidanka ay lahaayeen meesha tiliba ama gaari qof leeyahay oo bajaaja ayaa askartii iyo adigii isla raacday markii saldhiga lagu wad bajaaj oo muxuu ahay socotay ayaa la istaajiyay waxa la qofkan iyo askarigan qaad markii ninkii bajaaj wuxuu yiri aan qaaday maxme lacag waa in la siiyaa askariga markuu wuxuu ku yiri lacagta waa lagu siinaa gabadhan saldhiga hal geeyo igu soo noqo inta igu soo mar ana ku tuuraa lacagtaas sidaas la igu qaaday gabar kala kula saarneed marka faa'iido dad Soomaaliyeed oo badan ku dhageysanayo in gabar iyo wiil oo meel la geeyay oo la baaray la isku qalda la garan waayo xogaa su'aalo badan baa ka taagnaa marka maxaa isleedahay waa ku gaar yeeshay in lagu yiraahdo wiil baad ninka waxa wax kale igu maleenin ana waxa leeyahay xad badan oo obliba sharba loo maleeyo inay ugu yaalaan wajiga dad waxa u dilishan kara maanta oo ninka saas igu maleeyo intaas leewa waaya marka hore ma lagu yiri mise maanta kugu horeysay maanta wax oo dadka inay dhahaan suuqa marka maray kala sharba leedahay inay dhahaan walaal waa arki jiray laakiin dawlad ahaan waliga oo ma arag marka la yaabay kula noqotay mise waa caadi waad ka warqabtay in mar la yaabay kugu noqonay markii oo jinsiyadaadii lagu murmo inaad dumar iyo ninta marka lagu murmo waa dareemi kartaa dhibaatada leedahay gabadhii kula socotay iga waran marka ayadana ma laga reebay soo gabadhii ila socotay banaanka lagu reebay saldhiga gabadhii inta ani gudaha ku jiray ma ogeen waa la wareystay iyadana waxa lagu yiri gabadhan intay aqoon u leedahay gabadha qaraabanahay guriga ila degan tahay dan waxa tiri war qofkan nina qabo xaas waa marwo waaye qofkan aad u hoosinin aqligiina intuu aaday ma aqliga isku celisiin tiri waa gartay tan waxa ugu dhahay adisay ku hubisay in ay nin tahay ama nin naag tahay waxa ku kala garanaya lagu dhahay ma iyadoo qabaysanaysa aragtay hada marka banaanka u soo baxay sheekaysanayna waa gartay marka waxa iga warantaa natiijadii gabagabadii waa soo baxday ma jirto waalidka iyo qaraabadaadii intii aad meesha ku sugneed wax lagu ogolaa in la hadashay ku yimid ma yelimo ogolaan waxaan dhahay waa dada wacana marka waxa la dhahay ilaa aan ku ogolaano inaa qof wacan kartid loo wacan kartid in waa iska dhigay telefoonkii dan oo gacantaas iskaga haystay xilligaas muxuu ahay waxa kaloo markii ay fasaxeen waxaan ku yiri ana dacwo qabo oo dacwadeeda halii qaado dumar 6 ah oo booliis ah oo degmada saldhiga ku sugan inay dhibaato ii geeyaan ee caayaan ayagoo aqoonin waxa ahay iyo markaas ay arkeen ani waxaan ka tirsanaya aan ku yiri gaf badan inta halkaas saacadood meesha lagu hay gaf badan dumar ka tirsanaa halii qor sax dan taliyihii wuxuu ugu yiri adiga wax nooma meerisid حقوق الآدمها ومركي عند هوا كشقيا وحيرة حقوق الآدمها يطلقني قانو حقوق الآدمها ناي سومالي وإحنا كما تهاي كما أهو وإحنا نجمع قالي كستو أنا حقولي تالي أنا شقل ذا وديسي وحكوا شيء إن حقوق الآدمها وشقيا كم بدهن عنيجا حقوق الآدمها وحكا قبل كم بدهن هذا وحكوا هنا هنا أي شيء تبقى قلدنته marka dacwada ana dacwo qabo halii qaal dacwadii waa laga diiday markii waxa la dhahaa adiga wax uu ma meerin kartid sharcigana ma bareesid marka adiga wax ma qabi kartid la dhahay booliisku waxay xaq u leeyihiin inay xilliga rabaan ku qabsan karaan waxayna rabaan ka sameeysan karaan waaya marka faa'iido caruur ma ku joogtaa may hadda xas cusub ahay waaya marka nin odagaagii ma wacdo sheekadii kugu dhacdo ma u sheegtay muxuu ku yiri waa u sheegay wuu qaadan waayay wuxuu yiri maxaa qaldan wuxuu qaadan waayay sidee camal see ku dhacdo u dhahay wuu qaadan waayay waaya marka hadda waa wixii way isku dhamaadeen cidna doodku ma qabto adna waxaan u malaynayaa inaad gurigaaga ku laato cidna dood u qabin ani dood waxaan qabaa aniga horta gafa lii geystay if weyn ali geystay marka waxaan iri taliya waxaan rabaa aniga gafki lii geystay in laga dhaqo intaasaan tirsanayaa in oo maanta qof oo muwaadin ah oo dhib geysan oo fal lagu soo qaban oo wax la geysan in la caayo la aflagaadeeyo oo haddana la dhaho inta ka bax waxa rabaa ka samaysan karnaa
waxa qaadan waayo waxa jira faa'iido muwaadinka waxyaabo xaq loogu leeyahay qarankiisa ku leeyahay iyo wax isagoo xaq u leeyahay marka wadanka wad ogtahay waxa ka jira dhibaatooyin badan dumarku waa rag baa isu okeysiya falal baa lagu fuliyaa inta dumar la iska dhigo haddii inta lagu qabtay meel lagu geeyay adigoo aan lagu dhibaateynin lagu jirdilin lagu baaray waxa tahay la ogaaday lagu soo fasaxay maxaa hadda dacwada booliska u haysata horta dhibaatada jirto wadanka oo dhan waa wax aan la socono animihii qof oo dibadda uga baxay xaalad kasta ee Soomaaliya ku jirto waxaan ahay qofka daragsan weligoodna garabsiin jiray laakiin xuquuqda ay leeyihiin boolisku waa meeshii xushmada iyo nidaamka looga baran lahaa ee shacabka uga baran lahaayeen laakiin boolisku markuu caay kula dhaqaaqo markuu muxuu ahay aniga waxay iga leeyihiin inay qabtaan inay haystaan inay baaraan xaq bay iga leeyihiin laakiin xaq uma laha qofka in la aflagaadeeyo xilliga oo baaritaanka u socdo maxaa hadda doonaysaa waa dalbani waxaan dalbanayaa oon ka codsanayaa dowladda Soomaaliyeed in hoos loo daadego la fiiriyo qaabka shacabka markii la soo qabto shacabku waa la soo qaban karaa iyo boolisku sida u wada dhaqmaan haddii boolisku intaas uu ku haysto uu gaf ku geysto meeshii kale oo la aadi karo loo dacwoon karo inay jirto hadda ma qabtaa walaac kale oo is leedahay waa laga yaabaa in mar kale ciidamo ku qabtaan oo lagaaga shakiina ragta والله ما قرن كره horta wixii mustaqbalka laakiin waxa wixii maanta kugu dhacay oo ana filin igu dhacay walaga yaabaa in hadana meel kale kaaga qabsoomaan